بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan soo qaadanaa barnaamij yar oo gaaban oo ku saabsan inan yar oo 8 jir 10 jir xaafid quraan ah quraanka 2 jir dhameeyay haddana badan marsaday Cabdullaahi Sayid Macalin Maxamuud marka Cabdullaahi quraanka xillimada dhameys أنا 10 جير adigoo 10 جير 10 jir imsa jeer baad dhameys quraanka 2 جير عندي 2 jeer kutub imsaad marsatay 15 كتاب 15 kitaab hay ma ka xusan kartaa qaar kamid ah 5 kamid ah noo sheeg جمرة okay عندها فقهي سفينة iyo abi shujaaca marka kana hada ku jirto magacii kana hadda ku dhex jirto abi shujaac iyo shamaa'ilka iyo masalaada okay Cabdullaahi hadii aan ka weydiino su'aal ma noo sheegi kartaa hal ama laba xadiis oo kamid كلمتان خفيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كلمتان خفيفتان ثقيلتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كي معناه هذا هي كلمتان لما كلمة خفيفتان فضفض على اللسان حق عرب فضفض ثقيلتان كل في الميزان معنى قيام الميزان كذا حبيبتان لو جعلها لغا للرحمن الله الرحمن كحقيس لغا سمحي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيكم مركا عبد الله بيت خلاص صوتهم جرا عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال في ولي أبي هريرة الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم قردر ظلمات ومقديال يوم القيامة سمانة قيامه كاسنا وحوي حديث لبعض أو نوشيريو حافظ عبد الله محمود هاي بيت خلاص عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حوري السواك عظيم مظهرة وحو ظهرية للفم أفك ومرضاة وحورها لانشنوية للرب ربي ولي waxaan dhaxda kaga jiraa barnaamijkii gaabna aan ku soo qaadanay xaafid kan da'da yar marka Cabdullaahi hadii aan su'aal kale ku weydiino kulli xaafid baa taa quraanka ka xigsan tahay marka maqrag gaaban أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتيهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ما شاء الله ما شاء الله
cabdullaahi dugsiga maad dhigataa dugsigeed dhigataa dugsi Cumar Khadaab kalaaskaad dhigataana lixaad sidaad aragtaanba cabdullaahi waa inan dhalinyar ah da'diisuna tahay 10 jir quraanka wuxuu dhameeyay 2 jeer hadda kutub badan barsaday dugsigana wuxuu dhigtaa dugsigan Cumar ibn Khadaab ee ku yaala magaalada Fiiqi xarunta gobolka Hiiraan marka cabdullaahi maxaad ku boorin lahayd ama maxaad talahaan u soo jeedin lahayd dhalinyarada facaaga wax kale ma yaadu waxaan ku boorin lahaa oo ku dheerin lahaa inay diintana gacanta mid ku qabsadaan dunawigana gacanta bidix